Assalaamu calaykum asxaabtayda kusoo dhawaada channelka. Halkan waxaan kaga sii wadi doonaa insha Allah qaybta ku saabsaneed ilmahayga sidee ku caawin karaa inuu hadlo. Haddii qaybta koowaad kusoo dhaafta insha Allah soo daawo kadib videogaan usoo noqo. Qaybtan waxaan ka hadlaynaa ilmaha markay jiraan 6 bil ilaa iyo 12 bilood. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe tahay laawin comment-kan adinka waa idinka sugaya insha Allah. Ilmahaaga markii 6 bil ilaa 12 bil uu jiro waxaa loo baahan yahay mar walba aad wax u tilmaamaysid waa inaad magaca ku dhawaaqdid oo shaygaas aad u tilmaamaysid. Example waxaa ka mid ah kan waa bakeeri, kaas waa barkin, sidaas oo kale inaad ku celcelisid ilaa 3 jeer. Baybigaaga halkan waxyaabo ka faa'iidaya waxaa ka mid ah kow kalmadihii aad u tilmaantay shayga aad u tilmaamaysay, kadibna waxaa u tilmaamaysaa shaygaas wixii loogu talagalay. Halkan marka waxuu baybigaaga ka baran doonaa inuu kaa daba dhaho ama wuxuu isku dayayaa inuu kaa daba sameeyo waxyaabaha aad samaynaysid. Baybigaaga markuu soo yaro weynaadana more detail inaad ku dartaa loo baahan yahay. So haddii aad u tilmaamaysa kan waa bakeeri waa inaad hadda camal dhahdid kani waa bakeeri cadaan ama tan waa barkin cagaaran. Ma fahante kalmad marba waa sii badanaysaa kalmadaha. Mid kale waxaa muhiim ku ah ilmahaaga inaan buugaag la akhriso. Haddii aadan buug mataqaanaa wax walba aadan uga akhrinaynin xitaa in uu ka fahmo inuu kan buug yahay, in halkan wax laga akhriyo, inay kalmada ku qoran yihiin, in uga sheekay waxyaabaha aad arkayso. Adi waxaa is leedahay maxaa ma fahmaya maxaan u akhriyaa buug laakiin wuu ku fahmaya. Okay, taasa ilaawin. Subscribe-tan hanaga ilaawin insha Allah. Midda xigta markii baybigaaga aad dhahdid ma aragtay waxaan barayaa inuu isaga isdejiyo haddii wax badan ooyo kale. Ilmaha qaar waxay isticmaalaan inay suulka nuugaan ama inay dhuuqaan dummy wax la dhahayo ama pacifier midka baybiyaasha dhuuqaan. Muhiim waxaa ku ah inaad kaaska joojiso because by the time ilmahaaga 12 bilood gaaro weli ama uu suulka nuugayo ama wax kale uu nuugayo hadallada uma fududaanayaan inuu barto. Marka haddii ay muhiim ku tahay inaad siiso midka baybiga dhuuqaya pacifierka ama maarkino waxaas oo kale ku ekay waqtigeedu seexanayo not waqtigeedu soo jeedo active ka yahay uu kula hadli karo. Midda kale ilmahaaga 6 bil ilaa 2 bilood 12 bilood markay ay jiraan waxaa muhiim ku ah in aad wax badan la ciyaarto, aad u haysto si aad attentionkiisan u hesho si fiican uu ku dhageysto. Ciyaarahan la ciyaari karto waxaa ka mid ah kickaboo gacmahaaga wejiga horkeenaysaa kadibna kickaboo waa ka qosli siinaysaa saas oo kale. Baybiga marka wuxuu baranayaa inuu kula ciyaaro, inuu ku dhageysto, inuu ku fiiriyo wax badan insha Allah. Communication wanaagsan uu baranayo biidillah. qaybta saddexaad hadda soo socoto marka videoga xiga daawada insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.